السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلهي مهدي هدي أنا صلى الله عليه إذن كونا وقبتين يعني ونبض قبل وإلهي مهدي الحمد لله صحابي ما أنتوا حان إليهم بدا برنامج أنك آمس واي oo soo arkay briyahan oo dhan saa la soo dabawareegayo baraha bulshada baan rabaa inaan wixii fikirkayga ah ka dhiibto bal idinkuna fikirkiina ee wala soo wadaaga comment-ka hoose asxaabay inta aan barnaamijkeen u gadagelin waxaan rabaa codsigaas oo ah hadii aad channel-ka cusub tahay subscribe like share inta waa xagaaga hadii aad hor nool joogtana gacmo furan baan kugu soo dhaweynayaa familkeen aad ka mid tahay asxaabay briyahan waxaa aad u soo badanaysay waxyaalo ama aragtay bulshada aan u fiicnayn inay indhahooda qabtaan kulli aniga shakhsi ahaan sida ay la tahay idinku sida la tahay waa inuu fikirkeen ka hadlayaa kiina ka hadli maayo kiina bal idinkuna ila wadaag waxaad oo aragtaan sida idin la tahay haddii qurux idin la tahay haddii foolxumo idin la tahay bal ila soo wadaaga waxaa dhacday in waddankeeni hooyo laga furay meel cosmetics ah ama qaybta qurxinta dumarka qurxinta ah in laga furay baa ma aragtay soo tiraysa oo xitaa meesha ay ku taalo iyo ma aragtay adresska iyo waxa dhan baraha bulshada la soo geliyay qurxintaasoo ah in jirka bini'aadanka wax laga bedelayo for example furiyo waa la duranayaa sanki baa la duranayaa wajigi baa maxay ay la ceelinayaa bari baa la samaysanayaa kubaa la samaysanayaa I don't know sanki baa la dheeraynayaa mise la gaabinayaa haddii la doono waxaa la samay waxyaalo fara badan baan ma aragtay aan arkay asxaabay aniga shakhsi ahaan marka qurux ilaahay ku dhaliyay horta qofkaan qaadan karta ma jirto wixii ilaahay ku siiyo oo maxay ahayd jirkaaga sida alla ku sameeyay ku faraxsanaaw oo aaminsanaaw inaad tahay gabadha u qurxoon ama inaad tahay wiilka wiilasha u qurxoon shakhsi ahaan kulli antaas aaminsanahay wixii ilaahay ku siiyay alxamd shukr bil caalamiin inta tiraadid ku mahadsid han yeelo oo hankaagu ha ku sheego inay qofuna ka horeyn adiga inaad tahay the only one tii kaliyeed ee ubax lagu tilmaamay inaad tahay horta qalbigaaga geli waa gabaray waa dhanka gabdhaha dhanka wiilasha wiilow haddii ilaahay qurux ku siiyay oo sida ilaahay kuu sameeyay aadan ku qanacsanayn aday ku taalaa waad is qurxin kartaa ninka ragga ah quruxda horta nin ragga qurux maba looga baahnaba just waxaa looga baahan yahay ninka ragga ah in uu jirkiisa isla eg yahay inuu sameyn yahay waxaana ku samayn kartaa jiimamka taga ha maxay dabaraha qaado orda box deal sameeya waxaa noqonaysa six pack quruxda ninka ragga laga raban waa inuu jirkiisa dhiso ma ahana inuu meel tago oo yiraahdo hala iqale iyo murqa la ii sameeyay iyo six pack la ii sameeyay iyo caloosha la iga saaray iyo maxay ahayd waxyaalo fururta la ii weyneeyay iyo nin rag oo furur weynaysanay waa waxyaalaha aan ka soo yaabay kamida gabar oo waxaa la rabaa inay qurxoonaato oo gabariyay ka horeyn tartan inay ku jirto laakiin nin rag oo furur duranaayo waa adduunyo gadoon nin rag oo furur duranaayo aan soo arkay oo fururta dhinacna ka barsan tahay dhinac kalena ay maxay caadi ka tahay subxaanallah walla waxaa u malaynaya aniga adduunyo gadoonkii baaba soo dhawaadayba because waxyaalaha maalin walba is soo taraya oo soo kordhaya oo bulshadeena ku soo kordhaya waxyaalihii quraanka ka sheekeynay oo la sabnaaqarka waxaa la arki doonaa saan wixii ma aragtay maalinba kiskis noogu soo badanaya ilaahu qaatamada khayr nooga dhig qaatamada khayr Allah nooga dhiga ugu duceystaa marka waxyaalahaas oo kale la arko marka aniga maanta barnaamijkayga waxaan ku soo qaatay fururtaas la durayo iyo fanaxda la sameysanayo iyo maxay ahayd sanka la dheeraynayo iyo barida baan horta anigu ka aamusi waaye waa wax laga fiican yahay wax lagu dhiirado ma ahan weliba anagoo waddankeena joogna inaan waxaas u soo bareerno waa laga fiican yahay dadka qurbaha jooga inta badan
sida ilaahay u sameeyay ku aaminsan yihiin ayagoo weliba heli kara fursad ay ku samaystaan oo weliba lacag la'aan ah bay haddana waxdana aysan kala hayn bal idinkoo waddanka hooyo joogtiin oo maxay intaasoo dhibaato ka taagan tahay intaasoo shaqo la'aan ay ka jirto kastiyareed iyo lacagtiirood oo ma aragtay aad wax ku samaysan lahayd barnaamij iyo amba ganacsi iyo wax ku alifan lahayd inaad tiraahdo farurta hala ii barriyo iftada hala ii barriyo subxaana malakul qudus subxaana allah iska daaya waxaas gabdhow waxaas ka waantooba haa quruxda ilaahay ku siiyey ku qanacsanaaw wixii ilaahay kuu sameeyey ku qanacsanaaw sidaada ninka aan kugu rabin awluusa ku rabin nin kugu raba inaad farur barasato awalba wax uu kaa dan leeyahay oo ku rabaanba jirinba gabaray wiilow adigana yaa in ragaa ilaahay kaa dhigee intay isdhistaan oo jiimka tagtaan oo xoog ma aragtay boodhigiina qurxistaan gabar walba waa in rabtaa haa maahana inaad tiraahdaan maxaa la keenay barnaamij cusubaa yimid ninaa wejiga iga fiiq wejiga iyo caddee daamanka ii fuuri xalka iga fuuri wallaahi bilaahi waa arrin aan la soo yaabay hadda maanta waxaa kaloo soo korodhayba oo hadda daqiiqada ka hor aan ku arkay meesha tiktoka in xaruntii la xiray ayada dhanba albaabada lasugu dhuftay sababtoo ah waxaa la yidhi wiil baa wuxuu yidhi hala ii weyneeyo xubinta taranka markaasaa loo weyneeyey ilaahan idinku dhaariye bal ninkaas waxa ku dhici kara bal fiiriye ooba ku dhacayba already wayba ku dhaceen ninka xubinta taranka loo weyneeyey baa dacwooday sababtaas ayaa meeshii saakay booliisku dheelmadeen waagu markuu beryey albaabadaa lasugu dhuftay I don't know wax ka imaan doono kolley bal ninka dhahaya bahalka hala ii kordhiyo maxay tahay imaan daradaas yaa warniyo soomaaliya isqabano soomaaliya waa soo darsanay markaan waxaan maraynaa sagxaddii ugu dambaysay haa wax walba inaad isku daydaan idinkoo weliba waddankii jooga maxay tahay fidnadan ka socota soomaaliya hadda waaba yaabanaha anigu dadku waxay dhihi jireen qurbaha lagu fidnooba hadda waddankaa lagu fidnoobaya dadka waddanka joogaaba hadda fitnatul fitna wadaba haa qurbaha maba arkaba waxa isbararinaya iyo wax faruur daranaya maba arkinba intaa kolley anigu aan ma aragtay aan kala socda laakiin waddanka yaaba mucjiso ka taagan tahay war sidaan isku dhaama oo ilaahay isku xira oo ilaahay ka baqa haa waxaan aad sameynaysaan iska daaya dadkaan waxay wataan waa business ma taqaanaan wax lagugu diray ma ogid kiimika ahaa ma ogid sun ahaa ma ogid ii qabo hoo faruurteeda qabso haa dhac ku mud cirbad bo beri maxay kaaga imaan kara ma isweydiis haa adiga wiilow markaa leedahay xubinta taranka inta ku meesha kuugu muhiimsaneed noloshaada aad dad ku aaminayso u leedahay ii dura subxaan allah walle waxa ka socda soomaaliya wax ma aragtay indhaha laga qabsan kara ma aha haa bal akhyaarey idinkuna waxa aad ka qabtaan fikirkaas aan la soo yaabay maanta bal ila soo wadaaga idinkuna kolley aniga shaqsi ahaan arrin fiican ma ahan haa quruxtii ilaahay kuu sameeyey ayaa kaa badan alxamdu shukr rabbilcaalamiin dheh lixdiisa lixaad qofkii qaba oo caafimaad qaba qofka qurux badan ma jiro haa taa aamin qalbigaaga taa geli haddiiba ilaahay lixdaada lixaad kuu taam kaaga dhigay oo kuu dhammaystiray yaa oo caqli taam ku siiyey quruxba kuuma dhina haa quruxda lagu sheegayo waa qalbigaaga aaminsii inaan qofu kaa qurux badnayn كل شيء بنية ترى هذا عرب تحول نية هذا كيما هذا نية هذا قلي قبره إن أنا قبل كاقر حونين كرسوني هذا كوربان صار لي يوتيوب كي هذا دي بالرعدان سيدا كرسوني ذا لاسم ما يستو قفكي هور إلى جوين وإلى جوي لكن برنامج هذا كهر أنسو سمي يوتيوب كي وجرا وصوف في سكرتان سيدا كرسوني ذا لاسم ما يستو كرسوني أي الله باهي هاي قفك بن آدم كا وحال رأينا كرسوني هاي نفتيس كرسوني هاي quruxdiisa ku kalsoon yahay markaas ayuu maxay horumar iyo hami fiican iyo higsi u yeelan karaa haddaad naftaada ku kalsoonayn wax ku yaala male wax ku yaala oo sugaysaa ma jirtaan waxaad noqonaysaa qofka u foolxun haddaad naftaada ku kalsoon tahayna waxaad noqonaysaa qofka ugu qurxoon qofka ugu qiimaha badan leh haa asxaabay barnaamijkeena maanta oo arrintaa aan la soo yaabay dadkaan isdurduraya halkaas baan rabaa inaan
kusoo gabagabeeyo idinkuna wixii fikirkiina muhiim buu ii yahay aniga ila soo wadaaga kumanka igula soo wadaaga iisoo sheega bal waxaad ka qabtaan kolley anusaan ka qabo waa saa idin soo sheegay raalli kama ahi waana kasoo horjeedaa in wax gacyaala gacan ku samays ah waan kasoo horjeedaa mana fiicna caafimaad ahaan diin ahaan dhaqan ahaan wax ay ku fiican yihiin ma jirto bal idinkuna waxaad ka qabtaan ila soo wadaaga barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtigu ha idiin wacnaada asxaabay hal codsi intaana sii bixin channelka hadaad ku cusub tahay subscribe like share wixii soo gudbin waa xageyga